munaasabad lagu xusayo maalinta naafada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya sida markale uu ku soo waramayo wariyahayaga Muxiidiin Macalin Cabdulle MMC. munaasabadan oo lagu xusayay maalinta naafada adduunka oo sanad waliba laga xuso caalamka isla markaana ay soo qaban qaabisay hay'adda wasiinta naafada Soomaaliyeed ee Suudaan oo kaashanaysa ururo kale ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha ururada bulshada rayidka ee naafada iyo marti sharaf kale iyadoo munaasabadaasi qadka teleefanka ay uga qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdulle Sheekh Axmed iyo marwada madaxweynaha dowladda Soomaaliya. xubnihii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka sheekayay duruufaha ay la kulmaan naafada Soomaaliyeed iyo sida laga maarmaanka ay u tahay in la dhowro xuquuqda ay ku leeyihiin bulshada ay ku dhex nool yihiin sida in laga qayb galiyo dhinacyada isboortiga, shaqada iyo shaqaaleysiinta, caafimaadka iyo waliba waxbarashada oo kaalintooda ay ku leeyihiin. nolosha caadiga ah oo bulshada Soomaaliyeed ka fiirsid dadka naafada ah rol qayb kuma mana lagu talagalo ninkii dukaan furanayo ninkii ganacsi sameysanayo hay'adaha dawladda macnaha hadda meeshaan ugu sahlan roolkan aan ku jirno wuu kala sareeyaa marka qofkii gurguranaya ama uu soo wiilka wadreeb galaysa culays uu kala kulmaayo annaga haddaan association nahay ama magaca association ku hadlayaan waxaan yacni hore u ballan qaaday haddana hortiina ka ballan qaadayna inaan gacan siino oo aan intaan ka kari karno aan kabno intaan gaarsiin karnana aan gaarsiino war horta guryahooda barsiiya ayagaa shaqaysanayo idinka cilmi badan oo idinka aqoon badani ha looga saaro si degdega guryahoodii hana looga bixiyaan leen waxaan u baahannahay waxaan u baahannahay weligiitii ilaahay naafada qaranka Soomaaliyeed waxaas waxaa loo qaban karaa oo ay runtii xukuumaddu waxay diyaar u tahay kala qabato wax la baahidiina waxaa la qaban karaa marka intaad midaysan tihiin hal mowqif tihiin oo uu tiro badan inahayn hal arrintaas marar badan qabtaha oo ii soo jeeday weliba isku yimaada waxaad kala qaban dhulkaan aad raadinaysa oo leedahay u baahan waxaad kala qaban waxaan u baahannahay keliya hal urur badan oo midaysan oo karbaaysta mas'uuliyiinta hay'adda wasiinta naafada Soomaaliyeed ee Suudaan iyo xubno kale oo iyana madasha ka hadlay ayaa muujiyay caqabadaha la soo gudboonaada naafada Soomaaliyeed iyo sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo kaalinta ay leeyihiin. naafada ayaa ah noocyada kala duwan naafada waxay u qaybsan tahay noocyada kala duwan oo ay ka mid tahay naafada jirka oo ah midda gacanta iyo lugta iyo xubinka kooxda oo physical disability iyo naafada dhimirka oo maskaxda oo ah midda dhimirka iyo xasuusta iyo waxyaabaha la midka iyo naafada aragga iyo dhagaha oo ayadana ah naafada dadka aragga ama dadka dhagaha intaas ka bacdi waxaan rabaa maadaama maalintaas ay tahay marka maalin zaid adduunyada ugu weyn lagana tixgeliya caalamka oo dad naga xuso annagoo ah waddan ka mid ah wadamada geeska Afrika Soomaaliyana ah inaan ka qayb qaadano maalintan qiimaha iyo maayaha mudan guddiga sharciga diyaarinayo waxaan rabaa naafada shaqa meeqa ku leedahay horta shaqooyinka la heli doono meeqa ku leedahay boqolkiiba meeqa ku leeyihiin boqolkiiba ku leeyihiin annaga waxaan aragnay haddaan jidka taaganaada boqolkii la joojiyo oo loola joojiyo waxaa la qofkaan naafo annagooda inta soo jiitamaysa maaro ma helna naga wada leeyahay waxaan rabaa xataa sharciga qabanaha in la helo ninkaas oo baabuurka wato annagoo baasadiina wada naga tagaya xataa waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto waxaan soo hadal qaadnay wax qabashada naafada oo kow ay ka tahay xarunta naafada furitaankeeda maxaa hortaagan political crisis ka hortaagan waxaa hortaagan 4.2 iyo 4.3 iyo 4.5 way hortaagan tahay sababtay hortaagan tahay maxaa waay wasaaradii ama departmentigii naafada quseeye waxaa loo soo magacaabaa nin ku yimid 4.5 ahlu dhikrin u ahaan waxa loo dhiibayo albaabku ka fariisanaa ra'yiga uu keenaysa waxaa barnaamijkaas in la qabto la rabo waxa qabanayo dhan iyo kala guriyaan intii soo fariis war adin ma xasay guuso adin maxaa qabanay maxaa meesha u fadhida haddii muxuu ahay dawladii muxuu ahay loo soo jeediyo in dad wax qaban kara ama fahmi kara ama ka shaqayn kara in barnaamijkan loo magacaabo 4.5 oo ku salaysan yahay marka kaa lagu dhaqmaa taasna waxay caqabad ku noqonaysaa in horumar laga sameeyo wasaarad walba ama waax walba. Muxiidiin Macalin Cabdulle, Somali Channel, magaalada Muqdisho.